madaxweynaha galmudug axmed qorqor ayaa ka biyadiiday laba qodob oo uu ula tegay taliyaha nabad sugidda mahad salaad kadib wada hadallo dheer oo xalay ilaa shalay ka socday magaalada dhuusamareeb. haddaba muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa waa maxay labada qodob ee dowladda federaalka ay rabto laakiin axmed qorqor uu diiday, maxayse yihiin xalkooda? soo dhawaada saaxiibayaal, muuqaalka lagnoo saaro oo sii sheer gareeya iyada uu dib u dhacay socdaal uu ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ku tegi lahaa dhuusamareeb. xalay ilaa shalay wada hadallo qaatay saacado fara badan ayaa magaalada dhuusamareeb ku dhex maray madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor iyo taliyaha nabad sugidda mahad salaad oo halkaasi u tegay in xal waara loo helo xaaladda siyaasadeed ee galmudug isla markaana laga badbaado khilaaf ciidan oo dhex mara labada dhinac. dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa la sheegay in madaxweyne qorqor ula tagtay laba qodob oo kala ah: marka koowaad inuu ka tanaasulo doorashada galmudug gebi ahaanba, isla markaana uu ku dhawaaqo inaanu ahayn musharax u taagan jagada madaxweynaha galmudug. laakiin tallaabadaas si weyn ayuu u diiday axmed qorqor. dowladda federaalka ee soomaaliya iyo taliyaheeda nabad sugidda ayaa la sheegay inay axmed qorqor ku yiraahdeen sheego wax allaala wixii aad rabtid, laakiin ku dhawaaq inaadan ahayn musharax galmudug. dhammaan haddii ay ahaaleed xilal siyaasadeed iyo sidoo kale dhaqaale intaba, dowladda federaalkuna diyaar ayay kula tahay. waa sida laga soo wariyey oo ilo hoose ay noo soo wariyeen oo wada hadalkii dhex maray labada dhinac. haddaba axmed qorqor taas marnaba waa uu ka biyadiiday, waxaana uu sheegay inuu yahay nin siyaasi ah, madaxweyne ah, galmudug jooga, haatan wax badan qabtay, haddana raba inuu wax kala qabto, islamarkaana aanay jirin sabab ku kalifi karto inuu ku dhawaaqo in aanu ahayn musharax madaxweynaha galmudug. qodob labaad ayaa la sheegay in wada hadalku intuu socday isna laysku afgaran waayay, kaas oo ahaa: waayahay haddii aad tartamaysid waxaad diyaar u noqotaa inay guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ee dowladda federaalka ee iminka jira inay doorashooyinka galmudug qabtaan, islamarkaana doorashooyinku ay noqdaan kuwo isku sidsan oo doorashada golaha deegaanka iyo midda wakiilada hal mar la wada qabto, islamarkaana galmudug ay faraha ka qaado nidaamka doorashada ee galmudug. laakiin madaxweyne qorqor ayaa la sheegay in uu diiday taasna, isagoo oo sheegay in galmudug aanay aqbali karin guddiga doorashooyinka ee haatan shaqeeyo, islamarkaana aanay suurtagal ahayn doorasho isu sidsan iyo wixii ka dhacay koonfur galbeed. qorqor ayaa la sheegay inay taasi ka dhigan tahay inuu yiri in dowladda federaalka musharaxa ay rabto ay toos u saaranayso isaga oo goobjooga daawadana aanu ka ahaanayo. waxaase uu sheegay inay galmudug iyadu rabto in doorashada ay doorkeeda qaadato, guddiga doorashada ee haatan jirana uu shaqeeyo, laakiin guddoomiyaha iminka la rabo in isbedel lagu sameeyo haddii doorashada galmudug ay qabanayaan guddiga iminka jiro. caqabad kasta waxay leedahay xal. marwa fertility center waa xalka caafimaad ee ugu fiican xagga taranka. waxa ay kuu keentay adeegyo casri ah oo ka caawinaya inaad gaarto riyadaada qoys. baaritaan iyo daaweyn heer sare ah ayaa kuu diyaar ah. wixii faahfaahina nambarada shaashadda kaga muuqda. labadaasi qodobba wada hadallada rasmiga waxay sheegayaan, ama xogta rasmiga waxay sheegaysaa inaan lagu guuleysan in safgarad rasmi ah laga gaaro. haddaba waxaa loo ballamay wada hadallo kale iyada oo inay sii socdaan lagu heshiiyey. ra'iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa la filayaa in maalin kadib uu tago dhuusamareeb, isla markaana uu qayb ka noqdo wada hadallada iyo waawaanta u dhexaysa labada dhinac. ra'iisul wasaaraha oo la filayay inuu maanta tago dhuusamareeb ayaa dib u dhacay, isaga oo aan la ogeyn sababta keentay dib u dhacaasi. laakiin in natiijada wada hadalladu ay noqdeen kuwo aanay kasoo bixin wixii la filayay ayaa la saadaalinayaa inay tahay sababta dib u dhigaysa socdaalka ra'iisul wasaaraha, iyada oo wada tashiyo kale uu la sii qaadan doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xubno kasoo jeeda deegaanka galmudug oo muhiim u ah hanaanka doorashooyinka oo dowladda federaalku ay rabto inay ka hirgeliso galmudug. runtii xaaladda siyaasadeed ee galmudug ayaa indhaha lagu wada hayaa, iyada oo la eegi doono halka ay wax ku dambeeyaan. laakiin dadka reer galmudug iyo daneeyaasha siyaasaduba waxay leeyihiin waa in la helaa xal aan xabad iyo khilaaf ahayn, isla markaana wax laysku ogol yahay iyo doorasho heshiis lagu wada yahay inay ka qabsoonto galmudug, inay u fiican tahay mustaqbalka deegaanadaas iyo guud ahaan xalka siyaasadeed ee galmudug. haddaba wixii arrimahan kasoo kordho halkan ayaan idinkula soo wadaagaya. isha ku haya boggeygan axmed saciid axmed. muuqaalka lagnoo saaro oo sii sheer gareeya, soona falow gareeya boggan si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyey. waa mahadsantiin saaxiibayaal.